في النار أجاني الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. إخواني جميعا انت هذا مقرأ سيهر فرددا انت هذا الكي وقاري دونبا موضوع قولكو وموضوع عن ضدك وكلا السعنين رغي الدمر بواخو سيا daayartiya waayeelkana waa wada khuseeya dadkuna waa labo ama waa saddex aan iraado oo tajribeeyay oo soo maray oo garanaya guurku waxa uu yahay marka laga hadlayana waxa laga hadlaya si fiican u garanaya iyo qayb labaad oo ah dad wili u heelan oo hadda ku sii jeeda maalin ay noqotaba inuu gaaro uun ku taamaya iyo dad aan weli laga yaaba inuusan da'deedii gaarin laakiin dadka wadwaditaankoodii iyo badnidoodii iyo fitradii ku abuurayd iska jecelka sheekayntiisii iyo maqalkii guurku haddaba dabaqaadka da'da kala duwan dadka kala duwan ee dumar iyo rag intaba ah waa waxay wada doonayaan wada xiisaynayaan walidaalika marna waa fitra bashariya oo bini aadamka ilaahay abuurku abuuray baa waxyaabaha dawaacida ama keenaya guurka baa bini aadam ahaan ilaahay ugu beeray marna waa matlab sharci ah oo ilaahay sharaa'icdii iyo diimuhu soo dejiyey ayaa daray waxyaabaha asaasiga ee waaweyn labada arrimood oo iskaashaday baa waxay keeneen in dad badani ay ka hadlaan guurka dad uga hadlaya dhinaca wajhatu nadarka iyo aragtida sharciga ah iyo dad uga hadlaya caatifada iyo fitrada bashariga ah oon sharci iyo diini xakamayn oo aanu hogaaminayn markaa kadib shucuubta iyo dabaqaadkooda kala duwan iyo deegaanada kala duwan sanadaha kala duwan tijaabooyinka iyo tajaaribtii ay ka murka iyo nin walba historiga iyo taariikhdiisa inuu buug ka qoro waxaada maktabadaha ama suuqyada yaalla ama markaad safarada tahay noofallada la watay in badan oo ka mida waa tajaaribtii guurka iyo xiriirka iyo ragga dumarka oo ama ay dumar qoreen ama ay rag qoreen waxaan filayaa haddii la isbarbar dhigay intaan aswaaqda marayay buugta sidaas oo kaleeta ah ee uu qoray nin ama gaangis ahaan jiray ama tuug ahaan jiray ama sirdoon ahaan jiray ama ganacsado ahaan jiray ama macallin ahaan jiray khibradiisii iyo ayaamtii jaaribtiisii uu ka qoray inta kaloo dhan haddii la isku daro intaan arkay suuqa waxaa uga badan inta buugee laga qoray xayaatadii iyo xeerarkii ka soo maray xiriir rag iyo dumar iyo saaxiibo iyo guur iyo jacayl la isjeclaaday iyo laga soo hadlay inta laga qoree noofallada ah ka badan inta tajaaribta kale xayaatada laga qoray haddii la isbarbar dhigo kale waa isla ekaanayaan macnaa fitradii bini aadamkii xataa iyadoon xuduud sharciya talab sharci ahayn ba hataa fagaaraha bannaanka marka la joogo ka sheekayntiisaa la jeceliya walidaalika markii hadda guur baa laga sheekado dadaan meelaha kale iman jirin iyo munaasabadaha kale baa soo dhooban dadkan habeenka guurka laga hadlayo waa wada faraxsan yahay markii waxooga yar la sheegaba dadku waa qoslayaan macnaa meel bay ka taabanaysaa qof waliba oo meel bay waxoogay ka xaganaysaa haddaba waxa bini aadamku intaa badan ka hadlayo waad ogtihiin caawa fadhi intaa cishaha laga gaarayaa inaanan ka wada hadlaynin marka aan laba u qaybiyo ama iraahdo saddex marxalo guurku marna waa la geliyaa waa waxaan rabaa caawa inaan ka hadlo dhiirigelinta guurka marna waxaa laga hadlaa markii qofkii uu diyaargarowgii uu bilaabo aadaabtii la raaci lahaa aadaabu lkhitba dheh aadaabu nikaax dheh aadaabu lwaliima dheh abwaab iyo axkaam baa ka dhalata qofku markuu intuu xidhxidho uu diyaargaroobo ee dhiirigelintii intay miro dhasho caatifadiisii iyo dareenkiisuuna dhinac u jeedsadaan
markaas aadaab loo sameeyaa waxa la leeyahay qofka aad guursanaysa sifaadka iyo shuruuda ka ilaali sidee buu xiriirka sheekada rag iyo dumar ajaanibka la sidee baa is aragi ahkaamu nadari ahkaamu khitbati guurka ka sheekaysigiisa xuduuda banaan is aragi marka laga soo taga seeba gabadha reerkooda loo weydiistaa sharcigu muxuu xuduud u sameeyay sidee baa guurkii iyo mihor ka dhacaa sidee baa xafladii iyo munaasabadii aqalgalku u dhacaa aqalka maxay in la dhiga tahay maxay la dhigahayn ciyaaraha waa marxalad labaad oo iyadana qof soo diyaar garoobay diyaarinaya suu hawsha u gudageli lahaa marxalad saddexaad baa looga gudbiyo si reerka loo dhaqi lahaa maxaad xuquuq isku leedihiin see loo kala dambaynayaa maxaa waajibaad ku saaran reerku xaggay degayaan biilkii aaway caafimaadkii reerka aaway dambiishii la isdaba qaadanayay intii hore mutacada lagu soo jiray mas'uuliyaadkoodii baa la gelayaa dambiisha la iska daba qaatay iyo xilka culayska imanaya baa markaa la gelayaa intaa waa beri samaaga intaasoo dhan waxaa afraynaya marxalada afraad oo hadday xaajadu waxoogay murugto si la moodayayna noqon weydo waxna isdaba maraan sidee baa dhibka loo xalliyaa haddii la kari waayana loo furdaamiyaa waa abwaabkii abwaabu nushuuz iyo abwaabu talaaq iyo abwaabtii axkaamtii la xiriirtay weeyadana axkaamtaa tira badan culimmadeenna fuqahadu kutub gaar oo laga qoray iyo kutub dhexdeed lagaga hadlayba aayaadkii iyo axaadiistii iyo aadaabtii culimmadu ay ka hadleen aad bay u fara badan tahay anigu waxaa caawa ka hadlaya waxaa weeye marxaladii ugu horreysay culimmadana waxaan ka codsan lahaa wadaadada kale idiin iman doona malaaxisha kale ha sii dhammaystiraan caawa waxaan ka hadlayaa dhiirigelinta guurka iyo wixii dhib iyo caqabada ku ah in laga daayo waxaan rabaa inaan iraahdo culimmadu markay ka hadlayeen dee wax markii dadka lagu dhiirigelinayo warguursada la leeyahay markii raggii waraa la guursado la leeyahay dadkii waa in loo sheegaa maxaad ka faa'iidi meeshan haddii qofkii wax faa'iide iyo miro uu gaaraya haddaan loo sheegin dhiirigelintu wax badan kama dhaadhacdo hoos ugama daadegto waxaan ka hadli doonaa marka intii horey u soo guursatay baa garan doonta intiina kalena ee hamigu ku jirana maankaad ku haynaysaanoo waa intii horta gashaybe intiina aan gelinba hadalkayga ujeeddadeeda ugu weyn inaan baabka geliya aan rabaa inta fadhfadhida ee huruda ee hoos u foorarta baan rabaa inaan salka ka dhaboon kaca idhaahdo intii horey reera u lahaydna ninkii hadalkayga uu dhaqaajin karo waxna isku dayi kara inaan waxooga yar ruuxoo yar gilgilaan rabaa warkayga nuxurkiisu marayaa calaa kulli xaal hadda wadaadku telefoon uu ka shaqeeyaa ila tiraada ma laga yaabaa mas'alada guurku wax waliba oo dunidan la galayo dan iyo ujeedda la galaya ninka ganacsiga galay markuu ganacsi gaar ah galayo waxa inta kharash markaad galaysa faa'iidadaas la yiraahdaa ninka siyaasadda galayo xoolo ku bixinayana wuxuu hiigsanayaa kursi iyo jaga iyo lacaga badan oo meesha mas'uuliyadda gacanta ku dhigi doono buu hiigsanayaa nin waliba oo hawl galaya gaar ahaan hawl aan sahlanayn oo sida guurka oo kaleeta waa inuu jiraa wax uu culayskaana u xambaarayo jidkaa dheerna ugu sabrayo oo faa'iide iyo natiijo la taaban karo oo uu hiigsanaya waa inay jirtaa taasi waa midda koobaad masalada labaad ee ku baraarujinaya waxaa weeye markii hadjeedo iyo hadaf la arrin guurka wuxuu ka duwan yahay waxyaabaha hadafka loo galo dhan arrin buu kaga duwan yahay guurku sida qaalibka ah boqolkiiba 99 hadafkii laga lahaa faa'iidooyinkii waxbaa laga gaadhaa halka adduunyada waxyaabaha kale loo galay dhacda in badan inaan waxbaba laga gaarin guurka waa laga yaabaa inaadan wada gaarin ujeedooyinkii iyo faa'iidooyinkii laakiin wax uun baa laga gaaraa ولذلك odayaasha nin Soomaaliyeed ee hore way soo ururiyeen waxay dhaheen wax lagu tala xumaado guur baa ugu fiican wax markaad galaysa tala xusho
guur baa ugu fiican waayo wax kale hadduunan dhicin oo reerkii xataa durbo burburo ilmo kuu dhasho waa faa'iido weyn saas darteed guurku badanaa faa'iido la'aan eber ah sida haalibka ma noqdo qof hadday ku dhacdo qof wax ka soo qaad ma laha inta badan ee haalibka acdamka ah baa la raacaya guurka haddaba waxaan leeyahay 5 faa'iido baan ka soo qaadan faa'iidooyinkiisa faa'iidada koobaad waa ilmo faa'iidada ilmo inaad dhasho ilmo yeelato wax sahlan maaha ilmo inaad dhashaay 5 faa'iida ku jirta fadeen ku jiraan laftiisa 5 ka soo qaadan marka koobaadi rabbi subxaanahu wa ta'ala waxaa lagu raadiyaa ridihiisa iyo raali gelintiisa iyo jeclaan rabbi waxaa lagu raadiyaa kamida inaad ilmo dhashaa lagu raadiyaa arintaasina waa arin laga yaabo dadka badankii inaanay garanaynin sida ay ugu raadin lahaayeen waxay culimadu ku matalaan oo yiraahdaan haddii qofku adiga waa yahay ama adoon la leeyahay sayidkiisii joogo ama nin la maamulo la xukumaay ciddii mas'uulka ka ahayd ay joogto aan ka soo qaadna gaarisa webi baa ku yaalee webiga dhul beereedkiisa ninkan haddii dhulkii uu beeran lahaa la siiyo loo diyaariyo wuxuu ku beeri lahaana loo diyaariyo wuxuu adeegsan lahaayee u fududayn lahaana loo diyaariyo ciddii intaa u diyaarisay ma waxay jeceshahay inuu ka faa'iideysto mise inuu dayaco طبعا ninkii intaa kuu diyaariyay wuxuu jecel yahay oo ka raali noqonaya inaad wixii ka faa'iideysato waxaa la yiri beertu waa dumarkii rabbi baa ku abuuray subxaanahu wa ta'ala miruhuna waa shahwadii ilmuhu ka dhalanayay rabbi baa ku abuuro kugu beeray risiqiya asbaabtiina waa ku siiyay intii la isugu ka dubariday inaad meel banaana wax ku daadiso ku khasaarisay wixii la doonayay maaha nin raashin iyo la isu dul saaray bariisiyo dul saaray mindidii iyo qaadadiina loo soo dhigay oo ciidda darsaday soo dhib ma ciidda qaatay dhib way dariiqii meeshaad martaba gabdhihii baa jooga oo u diyaarsan wax dhista oo dhaqada oo reer ay u noqdaan oo ilmo u dhalaan oo ay soo dhaweeyaan oo koolkooliyaan u diyaarsan koolkoolinta waan ka hadli doonaa ka halka ragga loo fadhiyo meesha way gabdhihii waa diyaar ilaahayna beer buu ku magacaabay oo fa'tu harthakum anna shi'tum beerta la beera bariis iyo galley iyo digir baa ka soo baxdee beertani waa beer bini aadam ka soo baxaya way waa warshada ugu qaalisan ee dunida waxa ugu qaalisan soo saarta waa warshada iyadoo kale aadamo dhan ayna sameyn karin tasigaarka idin baa kula sameyn oo tacaanaha idin baa kula sameyn oo xun bay noqon horta beertii waa lagu diyaariyay oo waa kan hadaa ragtihiin gabdhihii baa idin ka badan bal madaarista oo gabdhuhu ka soo dareereen arag adugu adarkii abshir bacadlu baa kugu soo dhiciyo nin walow mid ama laba ka qabo yaan laga qadintiin baa kugu ninkii ka qatan wixii ilmaha mirihii beertan la beeri lahaayee soo dhalan lahaana shahwo dhabarkaaga ku jirta way oo wax shaqo badan u baahnayn inaad beerta la aado maahan waana waxaad habeen iyo maalin kulaylkeeda iyo dabkeeda ka fadhin laadahay dib baan mar baan ka hadli doonaa mirihii la beeri lahaana waad haysataa beertiina waata waa diyaar adigana xooggii iyo caafimaadkii baa ilaahay ku siiyey waxaana dhici karta in badan waxoogay reerka waxaad ku biiran lahaydoo ama xoolaa ama inaad haysato inaad wareegaysato markood iska daba wareegtaay wixii rabbi kaa rabay maaha ilaahayna waxa uu ku siinayo xikmadda uu ka leeyahay inaad wax ku qabato way aadamahan ilaahay caabudaya jirayana ilaahay inay iyagu aabiyaho yeelaan waa wada abuuri karay laakiin inay isdhalaan oo aadamihii sii jiro in caabudo la helo doonaya
marka haddaba aad guursanayseed ilma doonayso waa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii uu ku siiyey ee uu kuu diyaariyey inaad ka mira dhalisana laguu diray inaad ka faa'iidaysaa waa wixii rabbi kaa rabee kaaga raalli noqonaya wey taa intaa ka badan yaanan ku dheeraane waa faa'iide ilmaha ku jirta mar labaad faa'iidada ilmaha ku jirta waa nebi maxamed in lagu raalligeliyo wey oo waxa uu jecel yahay laga shaqeeya sala allahu calayh waalihi wasalam isagaabaan sheegay oon qarin nin baa u yimid sida abu daawuud iyo kayrkii ka warinayaan xadiidka macqil ibni yasaar radia allahu canhu wa ardaahu wuxuu yihi rasuulka ilaahayow qof dumaraan helay daatu xasabin wa jamaalin quruxna meel bay u fadhidaa qoyskay ka dhalatayna waa qoysaska dadka laga yaqaanee la ammaano wey qoys hadday tahayna waa unqula xididi lahaa qof dumara hadday tahayna waad ku indhadiraandiri wey indhadiraandir wey kii ragaana halkaasa laga raacay moogta kii rag ahaana mid cadoo dheer baa laga wada raacay wuxuu yidhi gabadh qurux badan weeye laakiin hal ceeb bay leedahay wa innahaa laa talidu ma dhasho buu yidhi qoftu iyadoo quruxsan bay ceebo badan yeelan kartaa laba nin baa tilmaamaya oo yuusuf barana wuxuu yidhi iyadoo qurux badan bay basari noqon kartaa ama araajo qamaan bulxadna wuxuu yidhi iyadoo qurux badan bay fudayd buubaya noqon kartaa markaasay labadaba ka calaacaleen qamaan bulxadna gabadh qurux badan baa xoolo badan intuu ka bixiyey bay aada ugu fududaatay isagoo xoolihii ka shallaysan baa dhibaad loo soo doonto walaalkeed usoo galbaday markii la cashaynayay waagii hore si dadban iyo sarbeeba wax la isugu sheegi jiray waana la isfahmi jiray baa wuxuu ku yidhi baal goraya waa lagu ogaa inuu bidhaamaayo berbera maalintuu tegay waxaa bi'iyey miisaane bir kolay ku tahay shayga fudud beesa lagu waaye boos waxaan jeclaadaba markaan baayacaan nacay wadaba'an bani aadamkii midkaad waaye barataay gabadhiina aad bay u fududdahay wuhi baal goraya waa qurux badan yahay laakiin bir kolay ku tahay shayga fudud beesa lagu waawi ninkii habeennimo markii la seexday meeluu baryama u taal habeennimo reeri ka guuray aw yuusuf barrana dhallinyaro yar yaroo raggan oo kaleeta ah oo galabtii casarka intay carraabaan shukaansi tegaya buu xoogay kelimadaha dardaaranka waa kii siinaye walaha guduud looma raaca oo haween gabalba waacayne isu gaadhay gabadhaa tiraa meelunbaa go-ane gaboodleyda gaashidu ku taal labada goonyoodba ay maradu geyngeymanta guuraan kala aado maradeedaba wasakda ka dhaqila marka gabadha wuxuu yidhi daatu xasabin wa jamaalin wey qurux badantay laakiin meel bay laadahay oo xaggee weye wa innahaa laa talidu nabigu wuxuu yidhi iska daa ma guursadaa iska daa ninku dee xoogay qalbigiisa ayaa raacayo meel baa kaga dhaganayda wuu soo noqday rasuulka ilaahayow gabadhaasaan haystaayo ma guursadaa buu yidhi markaasuu nabigu yidhi iska daa mad saddexaad buu soo noqday wax ka tan weyn baa wada ninkani oo riixaya markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi markii laba iska daa wuxuu yidhi tasawaju lwaduuda fa innii mukaahirun bikum lumama yowma alqiyaama war gabdho idin raba oon la qasbin qorqood bii kuma cabtee oo wax dhalaya oon ma dhalaysahayn guursada maxaa yeelay qiyaamada nabiyadu nin walba ummadiisaa lagu tartamiyo kan ugu ummad badan inaan noqdaan rabaa haddaba nabigu wuxuu hiigsanayay ambiyada kula tartamayay ummadiisii inaad badiso oo wuxuu jeclaa aad ka shaqaysa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyada lafteedu fa hadaf yar ma aha weli ilmihii baan ku jiraa ogow mid saddexaadna ilmaha faa'iido waa leeyahay inuun aakhara haddii aad aaddo adoo god ku jiro cidla ah oo maryihii iyo kafankii ciidii ku cuntay ilmo saalixoo kuu soo duceeyo aad hesho xadiidka abu hureyre waa kii ahaa muslim iyo kayrkii warinayeen idaa maata bnu aadama inqataca camaluhu ilaa min alaain waxaa ka mid ahaa aw waladun saalixun yadcuu lah inay ducadiisu aakhara kugu timaado oo qabri lagugu nuuriyo miisaanka xasanaadkaaga lagu badiyo wax sahlan maaha arrintaas arrin yar maaha walidaalika ilmaha aad dhashay markii camalka aakhiraahdo waxaa dhici karta aduu waajibkaagii tarbiyada haddaad ka soo baxdo waa faa'iide aan khasaaro lahayn
faidaa khasaaro lahayn waxaan uga jeedaa wixii uu khayr iyo xasanaad sameeyana waxbaad ku leedahay oo nabiguna calayhi salaam wuxuu yidhi ina atyaba maa akala arajulu min kasbi yadih qof wuxuu cuno waxaa ugu xalaalsan wuxuu shaqaystay wa ina awlaadakum min kasbikum carruurtiinnuna waxaa shaqaysateen bay ka mid tahay haddaba ilmahaagu waa waxa aduu shaqaysatay wey khayr iyo wanaag iyo darajo fiican hadduu gaaro aakharaaba lagu dallacsi alxaqnaa bihim duriyatahum wamaa alatnaahum min camalihim min shay hadduu xumaadana adu waajib ay ka soo baxdayna walaa taziru waasiratun wisra ukhraa way hadduu xumaado mujrim dembiile a noqdo dembigiisa lagu qori maayo hadduu nin khayr badan oo taaco badan noqdana camalkiisa waxbaad ku leedahay waa faa'iida aan khasaaro lahayn sooma aakhiradaadi taana waa hadaf la hiigsan karo war camalka adduunka intaad joogto inuu camalkaagu uusan wanaagsan aad u badan baa dhici karta ilma aad si fiican u tarbiyaysay oo kuu soo duceeyey oo kuu soo allabarya ama tarbiyadiiba ilaahay intuu ku wanaajiyo salaada baajir aad ku yeelatahay wax weyn oo qofkii aakhira doonaya uu shaqaysta wey mid afraadna waa leeyihiino waa kuwii kaa dambeeyey kuwaas haddayba yaryari kaaga horeeyaanna si imaam muslim iyo kayrkii wariyeen ilaahay way ku dhegayaan qofkii ilaa loo shafeeco way la kulmayaan markaasay ku dhegayaan maradiisa nabigu intuu nin maradiisa qabtay buu yidhi kamana ana aakhidun thawbaka alaana saan maradaadu u hayay farqaha ku dhegayaan kan hanaloo daayo leeyahay annaga waalidkaya wey waalidka annaga hanaloo daayo yaryari hadday kaaga dhintaanna aakharayba joogaan meesha kugu sii sugayaan shafaacadoodii waa liibaan haddayba iyagoo wanaagsan kaa dambeeyaanna ajirna waa kuu socdaa ducadoodiina kuuba dheer ilaah waalidka u dembi dhaaf taasaa wax badan ku tari faa'iido shanaadna waa leeyihiino adduunka laftiisaaad ku intifaacay intifaaca adduunku waa fara badan yahay aan saddex ka soo qaado mar horta waa ziinatulxayaati oo ilmahaagii iyo markaasaa isula socotaan ee gacanta haysi iyo bannaanka maraysaay almaalu waalbanuuna ziinatu lxayaati اddunya ziinadaa labadaba way u tahay oo horta raqbadii qofkii waalid inuu noqdo ilmihii saarkaay reerkii markay wax isu dhali waayaan anna calafkaygaan raadsan soomaydaan maqal guryuhu inay burburaan waa fitra bini aadamka ilaahay ku beeray aadamaha iska daayay xayawaanaadkii baa ilmahoodii laabta ku watoo la cararaya sooma arag caatifadaas meelaad ku bixisaad u baahan tahay maanta waxaa lai weydiinayey arrinta waxad u garan kartaan islaam baa maanta waxaa lay weydiinayey la yidhi dhakhtarba waxay ku yidhaahdeen waxba dhali maysid waayo ugxuntaada ilmuhu ka abuurmaani waa daciif dhali kartaa islaan kale ugxunta inta laguu soo qaada biyihii ninkaaga lagu dara in lagugu beero waxay leedahay ma ii bannaan tahay waxaan ku yidhi maya waayo ilmahooyo kale xayawaankadoo la soo qaaday calooshaadunbaa la kiraystay laakiin qofkan maxaa ku kallifaya wuxuu u baahan yahay ilmo uu dhalay inuu arko baahida uu qabay fitriga ee dareenka ah baa wuxuu rabaa intaasoo xoola u bixin laga yaabaa intuu naga daawadaadka warkiisa intuu yidhaahdo xaaraan dalaq inuu yidhaahdo waxaa laga yaabaa ragaad iska celin lahayd ilmaha jacaylkiisa alwaladu majbanat mabkhalatun waa kii nabigu alayh isalaatu wasalaam marka ilmihii inaa kula joogaay ziinat lxayaati اdunya wey ziinadana sida dharka aad ku xaragoonayso aad u fiirfiirinayso baad ilmaha marba u fiirfiirin soomaad arag bal meel isbitaalih iyo meel kale iyo waalid ilmihii wataarag kolba wuu qaadi wuu dhigi kolba wuu qaadi wuu dhigi wuu kici wuu ka daba kici wuu soo xambaari ilmihii waa 2 jir sanad jir waalidkii dhannaa qofkii weynaayey waaba mashquulba kanuu la qosli kanuu la sheekaysan waaba nin riwaayad daawanayay u baxaysaba wey adigaaba kulaba joogaba saacaddu goolay martaba ogaan maayo waxay saacaddu ku dheeraan hadduu xanuunsan yahay ooyayo laakiin hadduu kolba ordayo soo qabanayo o la ciyaarayo waxaa wey nin faraxsan oo ciyaaraya wey waayo meel fiican bay u maraysaa horta ziinada waa manfaco adduunood ku intifaacayso caatifadaana waa manfaco adduunood helayso intaa waxaa kugu dheer hadduu yar yahay waad adeegsan biyaha ii soo qabo kabaha ii soo qabo alaabtaa ii soo qaad dukaankaa wax ka soo gad waryaa saas soo yeel
waxaaba tahayba nin melig iyo boqoraho awaamir bixinayo ciidan hoos joogaan maxaa kursigan loogu kala cararayaa kuraastan loo kala cararayo xukumo saayeel waxa bini aadamka shahwo wuxuu qabaa inuu wax amro saayeel wariya saayeel adigu kuwa la isku haystaba maxaa ku horta ku suray kuwa meeshan oo ciiba kugu haysanin wariya iskuulka aadiyo wariya ka soo noqaa halka dawlad baa wad maamulaysaaba waana ku anfacaya suuqu kaaga soo adeegi darisku kaaga soo adeegi guriga dhaxiisu kaaga soo adeegi hawl buu ku soo qaban waa manfaco weyn weey adigu saacad kasta ma kici kartid saacad kastana wax lama doonan kartid ilma yarna wax ka adeeg fudud la waa madaalo macajiso fag u soo noq bal dhawaytaan wiil meel u diray 10 daqiiqo aan ka soo wareegin baa meel halkan yaanu malaynay inay tahay ilaa meesha xafiisyada dawladda budurba soo noqday kaasaan xageed gaartay halkaasaan gaaray waxa waa 10 daqiiqo oo maxay tahay waan sii orday waan soo orday ayr ma socon xataa intuu sii socday uu ordayay intuu soo socday waa ordayay adoo ma kari kartaa adigoo weyn meesha imise kugu qaadan lahayd adeegan aad ka soo qaadato daf fudhi ilmihi yara waxa la yiri ilmaha yar yarka kubdaala ma lehe muxuu leeyahay daashuule inuu gaajoodo calooshu daasho maahane luga daala ma lehe Soomaaliya suuxeed iskuul u diri casarkii buu soo bixi dugsi quraan aad u diri maghribkii uu soo bixi marka uu soo bixin ciyaar u raba kow ma jooga ninkii ciyaar bay ka haysaa isagii adigana haddaad gelin hore meel laga hadaasad ku hay marka ilmo yaroo ku adeego xagga ku soo qabto hawshan ku soo qabto hawshan ku soo adeega waa manfaco adduun weyn hadiiba uu weynaatana ninku ku hayo ku biilo isbitaal ku geeyo ka warqabo إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف بضبانته دو يرى سادو درياليسي والدك وحاك لبحي المدري المهسي هيان يا والد كان دونيدا المبا الماء وقف كان لغو سينين marka uu waayeela si waxaya uu san u haysanin Soomaaliya arag tan manfaco kala way inta isku soo ururiyo waxaan rabaa inaan idin raahdo inaad ilaahay ilma guurkan ka siiyo ilma dhashay ba kaliya oo shantii faa'iido guurka ahayd iyada kaligeed baa intaas oo faa'iido yeelatay ilmaha kaligii baa wax loo guursada amarka ilmihi si uu dhasho إذا لبعضهم كان مارمن ilmihi iyo culayska iyo takaaliifta inaad xambaartana aad ugu dulqaadan baa lagu lamaanay wax kastaba markuu yar culus yar adag yahay wax lagu liqo baa lagu daraa hadda rooti adag qaadato soo shaahiye biyo iyo aad cunaha ku mariso ma baarid tan waxa weeye baa'ithu shahwa باعث الشهوة وبني آدم كالشهوة إلهي كبيري انت كركي كعتاك كسا مايسو السيد الناس أوريغي سنة ياي فوائدا سير لو غاراي مفضوضاتين هذه هوستا وحكا لعن لغاقا شدين تاسي لو غارا مسهلناتين شهوة لاغو شدين مارك إن لا دمي يوباهن وعدب كرايون قفكي وح قبنا يادن أركينين dariiqa markuu socdo deyn mayso hadii guriga joogo sariir oo galgalanayaayo deyn mayso 12 mushkiladood baa taagan si baasha xal ugu helilaa kasru shahwa si waa fitri bini aadamkii xayawaanaadka dhan baa ilaahay ku beeray ayaga Soomaaliya arag shahwad kuleelkeedana way isu geysay kadib soo kala fakan lahaana cabaadka ku dhacay waa aragteen ninkii cabaadka qabsaday bari deyn maayo haddana halkii uu bari ku noqon dhibkii ka gaarayso garan maysaan bahasha halmaansiisa soo haweenku Soomaaliyeed waxay yiraahdeen haweenku halmaan bi oga umul baaba yiraahdeen markay foosho haysana waxay dib dambe nin iyo agtiisa ha marin wax malakumoodu eeg baarki toddobaad markii la joogana wixii waa la halmaamay marka kuleylka iyo xanuunkaas oo dhan wax halmaansiinaya oo inuu ilmihi durbasi laba iyo saddex loogu talagalay oo shahwa ilaahay ku beeray haddaba bini aadamkii wuxuu ku qasban yahay shahwadii inuu guto sharcigu laba dariiq uu sameeyay bini aadamkana turuq badan bay u sameysteen
horta marka aad shahwada gudanayso asalka shahwadu gudashadeedu waa laba jinsi baa dadka looga dhigay rag iyo dumar raguna dumar buu baahan yahay dumarkuna rag buu baahan yahay walidaalika ninkuna markuu meelaha maraya ragga ma fiiriyo rag ma fiiriyo ishiisu dumarka meelaha maraya la jirtaa dumarka meelaha maraysana dumar ma fiirfiirisa meeshii rag ka soo baxo jirta waa la isu abuuray saa darteed mararka qaarkood rag iyo dumarku markay heshiinayaan inay wada hadlaan uma baahna ishooda isku dhacday ayaa heshiis noqota weli laba isguursatay oo weligood eray isdhaafsanin ma aragteen isha uun iska jeclaaday anu goobjoog baan ka ahaa safar baan ahayn gaadiid baan saarayn ilaa 5 beri ragguna dhinac bay saaraayeen dumarkana dhinac bay saaraayeen habeen iyo maalinna maanaan kala maqnayn maalinkan meel degnay bay wiiliga gabadh ilaahay sukaaya meheriya ninkii aan ku reenayo waxba kama qabno ay sukin meherinaynaa laakiin walaalow inta waan wada soconay goormaad heshiiseen goorma waa haasheen wuxuu runta hadaan ku sheegay hadal nama dhaxmarin laakiin ishayada ay saysay intii meesha la saaraanay iyadoo ma fiirinay iyadoo anigu bay fiirinaysay markaan soo degnay baa intaan la istaagaan ay wiri ma isguursanaa markaas ay tiri wiri haa marka bini aadamku ragna ishiisu dumar bay jirtaa dumarna ishood rag bay jirtaa waayo mid waliba fitrigii lagu beeray halkaas ay gudashadeedu adiga abiyo hooyaa ku dhalay guri reer baad ku soo kortay rag iyo dumarka dooniyaha waa lagu jeclaa laakiin gurigiinni waxaad rabtay ka heli maysid marka gurigii daaraha intaad ka baxdaan labadiinniiba inaad buul xun isla gashaan oo halka sacaadiya liibaan ku dareentaan baad ka doorbidaysaan in nin walba iska qataan mid walba iska qataanaadoo daarihii aabiyooyo la jiifo kee la dooranaya meesha duurka cidladaa la dooranaya soo ma ninkuna reerkii intaa soo koriyey gabar darteed buu u nici gabadhu reerkii intaa soo dartii bay uga dhuuman haddaba caatifada dareenka shahwada kasru shahwati waxa wey shahwadaas hadaa xaaraan lagu sameeyana naar baa lagu galaa haddii xalaal lagu sameeyana ajir baa laga helaa oo nabigeena sala allahu alayh alihi wasalam waa kii yidhi xadiidka abi dar wa fii budci axadikum sadaqa raggii haweenkaysu isu tegaya xalaashana ajir bay kala helayaan saxaabadu su-aalay way la yaabeen way isweydiin ya'tii axadunaa shahwatahu wayakuun lahu caleyha ajir mataydii aniga i gubaysay intaan soo guto haddana ajir layga sii qori bay yidhahdeen markaasuu yidhi ka warran hadduu xaaraan dembi ma dembaabi lahaa haa xalaal hadduu ku sameeyana ajir buu ka heli maxaa ka fiican shahwadaadiina gudo ajirna ha lagu qoro wax ka fiican ma laha waaba shimbir laba dhagax ku dil wey dhagax laba shimbirood ku dil wey ajirna ha loogu qoro waman lam yastatic facalayhi bisawmi fainahu lahu wiijaaun ha soomaa la yidhi kaasaa waxoogay bahasha jebinaye soonkii hadda nafti lagu kari waayo bad kale waa su-aalaha marka la isu yimaado siigaysi baa la isweydiin maantoo dhan waxay ka dhigan tahay nin xaaraanna ka cabsanaya nin xaaraanna ka cabsanaya soonkiina naf iyo shaydaan ay u diideen guurkii xalaasha ahaana gacan ku dhigila wax isu qaban la'yihiin bahashii karkeediina haynla waa gartii inuu weydiiya maanta oo dhan bini aadamkii sidaa duruuftaa qabsatayna si shahwadii istifraaq iyo siigaysigii baa maanta tafanun waxaa lagu sameeyey aan caadi ahayn boombalayaal baa loosoma bahasha dhibkay ku haysa jebinteeda loogu baahan yahay boombalayaal baa la samaystay raggiina boombala naag ay gadanayaan naagihiina boombalan inay gadanayaan soo ma dhalinyarada waxay ku qoslayaan way garanayaan suuqyaday taallaa ama xubnihii tarankaoo keligooda yaalla ee rag iyo dumar baa suuqyo lagu gadi si loo isticmaalo markii kii rasmiga ahaa la waayabaa mid artificial ah oo beenoo u ekaysiya waqti wixii haddaan waayo wax u eg baan rabaa wey
balayaal marna neef lagu afuufayo qofkii oo kala noqonaya marna neefta intii laga bixiyo la laalaabo boorso la gashanayo waa la samaysanaya macnaha waxa weeye dadkii waxba haye oo uu doonaya inuu iska daadiyo ولذلك النبي عليه الصلاة حديث السعود الحكيري يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ننكي غير كبح كرو جوسو دلنيري فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فرج ما للفرج أغض للبصر جوركو أي ويلاب ميان كنا وصدع أكره ليه إنها جي مركي عاد خلاص مركاد وحشو وحفيرفيرنتي وادين وحفيرفيرنتي وادين قف دقنو قنير صعدو وايلي بعد نقن ماشاد قبل مال مرتبه ساعه فيرينيسي دينتا هذا فساد بدن فيرفيرنتي اي سو غارسينيسي wax badan baa ku badbaadi واحسن للفرج فرجيغاغي حارانتا ku jiidan lahaana tana ilaalintiisa xanibaadiisa ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لبا دربود كلنا waa bixiyay حديث انس الطبراني في الوسط كورنا حسنه والنبي عليه الصلاه والسلام wuxuu ku leeyahay اذا تزوج العبد ninku hadii uu guursado faqad istakmala nisf ad-din diinta nuskeed waa u dhameystiran yahay waa haya falyattaqillaha fi an-nisf al-baqi nuska soo haray ilaahay kaga baqo oo maxaa ka daran nin dariiqa uu maray rag iyo dumar baa badan dariiqiya luuqiya jiirada gashana dumar baa jooga dumarkii fiiradoodina waa dambi iyo xaraam baa leeyahay tiikadiiskaydaan ahayn halkaas uu marayaa ninkii tii soo socota waa fiiriya tii soo socota waa fiiriya tii koona ka soo baxday ishu la raaca mise dambi ku waxa dhici karta bahasha shahwada badnideeda inay xaraan geliso oo nabigu wuxuu yiri aktharu ma yudkhilu an-naasa an-naara al-famu wal-farj dadka wax u badan naar ay ku galaan waa afkan iska daldalmayeen xad lahayn iyo farjigan oo xaraan la aado marna wuxuu yiri man yadman li ma bayna rijlayhi wa lihiyayhi adman lahu al-janna ya idamaarad qaada xaraan inuu ka ilaaliyo afkiisa labada laf gar u dhaxeeya iyo ma bayna rijlayhi farjigiisa labada u dhaxeeya waana janno u ballan qaada waxa soo dhan cifadii bay ku xirantahay cifadii xaraan la iska ilaaliyo ahayd xalaal aad heshay waa waxa koobaad ee lagu ilaalin karo wadaalku dardaaranka nabigu bixi sallam ragii ninkii reer lahaa marmar bay xaalad qabsan kartaayo wax ishiisa soo jiito arki karaa wuxuu yiri taas oo kale haday dhacdo waxay qalbigaaga wax ku yar dhaco guriga ku jiray wiil xaafadaadii tag fa inna ma'aha mithla alladhi ma'aha meesha isha Allah raacday waxa yaalay gurigaaga waa yaalay wad guriga u doonay nabi sallam خلاص guriga inta u doonato waxa karku haduu ka jabo suuqa ku soo jiiray wallaadan midig iyo biix mid fiirinayn nin edeb loo si baahan noqon diintaadii way ku badbaadi ولذلك wax faduuliya ee dariiqada fariista ee haweenka meelaha taagan waa inta aan reeraha lahayn badana waa dhifiye naadir ninun wixii waxa weeye wax si ka noqday ninka reerna la meelana wareegaya waa qof naadir oo si wax ka noqdeen way dadka intiisa kale waxa arkaysaa dhalinyaradii maalinku reer yeeshay buu degay fiidku durba inuu soo galbada sababtoo ah wuxuu habeenkii u saaman leeli jiray raadin jiray baa guriga u joogay waxa ka fiican ma malaha Soomaa wixii kale waa raadin dambi iyo isdabagal iyo ibalahayd diyaaro dambi la lahayn oo ajir la dabagalna aan lahaynba oo lagugu mahad ciris lagugu darayaaba meeshan jooyaale baa wax kale ka deeday marka dhalinyaro bahashan dadka gubtay dhiiga la shaqeynaysa iyo ishan istaagila iyo wareega dariiqada la wareegaya xaqan maxaa lagu sheegay sheekadaas rag iyo dumar kala dhamaan waaya sheekaya hadalkood ولذلك meelaha filimaantan maalin dhaxdaas wareysanay nimanka gada waxaan weydiinayay sidiyada filimaanta ee gadma maxaa ugu badan waxay yiraahdeen waxyaabaha jinsiga ama sexka ugu badan percentage-ka ugu badan yaa gataayri wiilal iyo gabdha leeyri daade gadataan ugu badan waxa la yiri daada unaan dhihi kara ma guursanin dikii markuu guursaday iyo gabadhii khadka way ka baxayaan dad waayeela oo khiyaara oo lagu soo hirtay noqonayaan hadda shaneemooyinka laga yaabo magaalooyinka in laga cabaado
daayarta haddii si xalaala loogu wada guuriyo shanimo wax galaba lama heleen iyagaa xidhi lahaa calaacalku wuu dhammaan lahaa laakiin waan calaacalaynaa saan u xidhi lahaynee rasmiga ahaydna samayn mayno haddiiba dhallinyaradii guurka loo fududayn lahaa dhiirigelin lahaa way fududaan lahayd maraan yurub joogay baa mawduuca dhallinyarada yaryarka ah yararka waxaan ka wadaa waxa 20 jirka ka yar in 20 jir ka weydii nin weyn wey baa guurkooda la yidhi maxaa kaala qumana waxaa dhah loo guuriyo wiilashiiyo gabdhaha ardada ah intaad wiilkiiyo gabadha isu guurisaan habeenna buugtooda xaafadda ha ku wada akhristaan habeenna buugtooda xaafadda xagga ha ku wada akhristaan waxay yidhahdeen maxaad saa u leedahay waxaan saa haddaydaan yeelin magaalada markaa u dhaadhacdaan wiilkiina gabadh buu luuq la taagan yahay gabadhiina wiil bay luuq la taagan tahay kollaba wixii waa la samaynayaa mid xalaal yihiin oon xaaraan ahayn caafimaadkana laga baaroon cudurro hoosta ku wadan soo kama khayr roona in wiilkiina wax qarsado gabadhiina waxba qarsato oo dembina ah waxaa ka roon kollaba wixii way samaynayaan labadaba laba aad isku ogtihiin reerahana la isku yaqaano halkanna qol laga siiyo xaggaana qol laga siiyo baa ka fiican oo labada reer isu ogyihiin haddii iyagoo yar yar bay wax dhalayaan baa layidhi waxaa idhi haddaad dhalmada diidantihiin kollaba intay zina iyo xaaraan dhici lahayd wax celiya dhalmada laakiin aan baabi'inin u raadiya akhafu dararayn weeye meelaha la joogo yuro meelaha dhibka badane raynkaa sameeya marka waxaan rabaa inaan idhaahdo da'yartii waxaa dembigaa gelinaya dareenkii shahwadii iyo kulaylkii sharcigu guurka in lagu damiyo oo lagu jebiye ahaa baa lagu adkeeyey ama dhaqan baa ku adkeeyey ama duruuf kalaa ku adkaysay ama duqay baa ku adkaysay kadibna meelo kale inay jabsato xaggaa biyaha webiga hadday roob badan da'aan oo meeshay u socdeen laga xira maxay samaynayaan dhinacyaday u fatahayaan sooma haddii xaggiina hore laga xidho wallaahi biyihii way fataheenna lagu calaacala sow qalad maaha marka kii saxda ahaa haddii la ciriiriyo fatahi baasho marka dambana nin walba gor intay u raacday guryaha tegi arrinta saddexaad ee guurka laga faa'iidayo waa nafta iyo qalbigo in loo raaxeeyo la dejiyo u baahan sidaba nafta bini aadamku mar kasta wax jiddi oo dhab ahoo kuma socon karto marmar ay nasato ay waxoogay ciyaarto ay waxoogay haasawdo oo ay sheekaysato bay u baahan tahay walidaalika bini aadamkii reerihii bini aadamkii dowladihii dalxiis baa laga hadlayaa bini aadamkii waa meel uu ku yar nasto u baahan shaqo maantao dhan kuma jiri kartid maantao dhan cashiro kuma jiri kartid maantao dhan siyaasad kuma jiri kartid markaad soo daasho meelaad ku nasataad u baahan tahay oo ku hawa bedelato meesha ugu fiican ee lagu hawa bedashana waa reerkaaga iyo gurigaaga ninkii saad u daalan tahay adoo xiiqsan guriga markaad timaado soo dhaweyn fiican oo lagu soo dhaweeyaad wax walba halmaanyo waxoogay wadaadkii soo xiiqay markuu intuu soo galbado cumaamadii iyo koofiyadii iyo qamiiska uu iska dhigo horta xadkii adkaa iyo brotok waan cimaamadda saa u qabtaa inaad qamiiska saa u qabta horta brotokool culays baa ka degi marka u horeysa markuu guriga yimaado in la soo dhaweeyo ee gacmo cilaaban lagu soo dhaweeyo oo hadal dabacsan lagu soo dhaweeyo oo cunto diyaara lagu soo dhaweeyo oo sheekada qosol lagu soo dhaweeyo isagii dhannaaba ninkii cadhaysnaa maaha kii daalanaa ma aha hawadii hawa aan kala hayn buu geli hadha waxoogay markuu joogo isagoo fresh adarki oo hadda shaqo cusub haddii loo diro si fiican u soo qaban kara marka saa darteed innagu dadkii markay soo daalaan makhaayado fadhi ku dirir baan tagnaa markaad aadayso waxaad dareemaysaa inaad u baahan tahay meel aad tagto ood soo hadasho ood soo darooryanto ood soo muranta aad u baahan tahay manaa waxbaa kicinaya qofka uu dareemayo haddaad badda tagto qolyaha maantao dhan qubqacdaa ku haya hawa bedelashay raadinayaan hawa bedelashada ugu fiicanna waa inaad guriga timaado caalam kale iyo sheeko kale hal ogaada markaad shaqada iyo bannaankaa joogtaan iyo gurigii iyo caalamu nisaa markii la tago humuumtu aad bay u kala duwanta waxaad bannaanka ku hameeyeysa ka fikiraysa iyo fikirka gurigaayo waxba isaga dan ma aha haddaad tiraahdo waxbaan qorqorani waxaa laga yaaba waraaqaha in lagaa laado
maanta dhan baad banaanka jirtay hadda annagaa iskale soo fadhiisa lagu yidhaha sheeke soo sheeko un maada rabin soo dhowow dee wax kaloo badanna kugu dheer idinku garta haddaan rabtaan sheekadaa haddaba ilaahay aadam markuu xawa ka abuurayay muxuu yidhi wa khalaqa minhaa zawjaha liyaskuna ilayha inuu ku xasilo ku dagaa loogu talagalay ninkii xiiqsanaa ee cadhaysnaa ee daallanaa inuu meel uu ku dagaa loogu talagalay wa min aayaat kaa dhacay wey war wixii hawl guri ahayd soo lagaama hayo dhar baa la dhaqi lahaa guri baa la nadiifinayaa ilmaa laga shaqaynayaa cuntaa gogol baa la hagaajinayaa ninka iskaabulada ee guri intuu karaysan yahay rootigu ismarsaday isagoo degdegsan saaka uu ka tegay halkii isagoo yaa lagu yimaada sariirtii guu degdega uga toosayna sidii isagoo u kala yaa lagu yimaadaay oo markuu yimaado inuu jiko galo cunto kariya ay tahay inuu sariir hagaajiya laga rabo inuu weelal dhaqa laga rabo inuu dharkii dhaqda laga rabo soo nolol cadaaba ma noloshaas cadaab wey saa darteed haddaad dhalinyaro ay aragteen ninkii mar guursaday ee guurkii xogay ka kala xumaado ma istaago idinkuma bannaanka taagtaagane ma arkay soomaalida maxay yidhahdeen dhadhamiyaa waalan bay dhaheen dhargaana kaba daran marka meesha nin arkay oon sii miqiiqnayn waa la waayey markay ka xumaata meesha waa kusii cararayaa gurigii baad timid maantao dhan baad shaqo ku jirtay xamaali baad ku jirtay siyaasad baad ku jirtay cashiro iyo diin baad ku jirtay gurigii markaad timaado sariir goglan guri carfaya cunto diyaarsan dhar dhaqan oo kaawiyadaysan yaa salaam taa ninka aan haynin nolosha wax badan baa ka maqan nolosha nusnus buu ka hayaae xayaatada dhadhankeedii weli ma gaarin oo ma fahmin ninkaan taas haynin